بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب كسو دوادا مقال كلا oo aan kaga hadlayno maadada xisaabta waliba fasalka sideedaad. intaan garan ka hor Ramadaan Kariim oo kul caam wa antum bikhair. maanta marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay cutubka labaad oo magaciisu yahay jibaar waliba leeyligiisa koowaad oo ku yaala bagga 19aad. leeyliga marka ayaan fiirinaynaa. su'aasha ugu horeysa waxay dhahaysaa u tibaax tiro ahaan jibaarada soo socda. marka waxaa lagu siinaa tirooyin lagu siinaa, kadibna waxaa u qoraysaa jibaar ahaan u qoraysaa. su'aasha ugu horeysa marka waa sidaas. waxaa lagu siiyay jibaarka lagu siiyay waa laba lagu jibaari 6 ama laba lagu muujiyay 6. waxaa u tibaaxdaa ama u sheegtaa tiro ahaan. midda labaad waa 9 lagu jibaari 3 ama 9 lagu muujiyay 3. hadda waxay u qoran tahay jibaar ahaan. waxaa la rabaa inaad u tibaaxdo ama aad u sheegtid tiro ahaan inaad u sheegtid. sidoo kale 3 waa 11 lagu muujiyay 2. hadda waxay u qoran tahay jibaar ahaan u qoran tahay. waxaa laga rabaa inaad u qortid tiro ahaan. iyo mid u dambayso oo ah 5 lagu muujiyay 4 oo iyadana u qoran jibaar ahaan, lagaana rabo inaad u qortid tiro ahaan. su'aasha labaad ayadana waxay ka rabtaa tii hadda cagsigeeda waa amlidkeeda. waxay ku leedahay u tibaax jibaar ahaan tirooyinka soo socda. micnaheedu maxay tahay marka? waxaa lagu siinaa tirooyin soo socdo, yani tirooyin lagu siinaa, tirooyinkaas waxaa u qoraysaa jibaar ahaan u qoraysaa. su'aasha ugu horeysa marka oo lagu siiyay waxay tahay 6 lagu dhuftay 6 lagu sii dhuftay 6 lagu sii dhuftay 6 waa 4 lixaad oo isku dhufsan. 2 waa ta lagu dhuftay ta 2 ta'aad oo isku dhufsan. waxaa u qoraysaa jibaar ahaan. sidoo kale 3 ba lagu dhuftay ba lagu sii dhuftay ba, yani 4 ba'aad oo isku dhufsan. su'aasha kale ee afraad waa 2 shanaad oo isku dhufsan iyo 7 saddexaad oo isku dhufsan, yani 5 lagu dhuftay 5 lagu sii dhuftay 7 lagu sii dhuftay 7 lagu sii dhuftay 7. midda u dambayso ee aan su'aashan ay ka kooban tahay waa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 2 lagu sii dhuftay a lagu sii dhuftay a. waa 2 labaad oo isku dhufsan iyo 2 aad oo isku dhufsan. su'aasha kale soo reeytana u dambeysay oo midda shanaad ah, midda lixaad aan dhaho 6 iyadana waxaa waaye a lagu dhuftay a lagu sii dhuftay a lagu sii dhuftay a oo yani 4 aad oo isku dhufsan iyo 4 aad oo isku dhufsan iyo da, yani waa 4 a iyo 4 a iyo hal da oo isku dhufsan. waxay u qoran yihiin marka sida tiro oo kale u qoran yihiin. waxaa laga rabaa inaad u qortid jibaaraha inaad u qortid. okay, marka haddii aan ku hormarno su'aasha horeed oo ahayd jibaaro lagu siiyay ama ay su'aasha bixinaysay la rabay in loo qoro tiro ahaan. furfurusaan dhahayna marka ugu horeyso jibaarka ugu horeyso noo soo qor oo ahaa 2 lagu muujiyay 6. hadda wuxuu qoran yahay jibaar ahaan. waxaa u qortaa tiro ahaan. dabcan jibaarka wuxuu ka kooban yahay 2 ka kooban yahay. labada hoose oo kan waa salka waa 2, muujiyahana waa 6. marka muujiyaha wuxuu ka hadlayaa ama waxa la ku cadeynayaa in salka uu isku dhacayo 6 jeer. يعني لحداس waxay sheegaysaa salka laba ah inay isku dhacayso 6 jeer. waxa isku dhufsamay waa laba oo salka ah, wuxuuna isku dhufsamaa ama la isku dhufanaa 6 jeer. haddii marka la sameeyo oo la isku dhufto sidaas ay noqonaysaa labadii oo la isku dhuftay 6 jeer. marka 6da waa muujiye, labadana waa sal. 6da marka waxay cadeynaysaa ama ay sheegaysaa salka inta jeer ee uu isku dhufsamayo. sidoo kale haddii aad isku sii dhufan marka waxaa soo baxayso 4 lagu dhuftay 4 lagu sii dhuftay 4, yani laba kasta hadaa isku dhufan, labadan hadaa isku dhufano, labadan kalena isku dhufano, labadan kale isku dhufan, ugu dambeyn waxaa soo baxayso 4 lagu dhuftay 4 lagu sii dhuftay
afar ayaga nafsadooda haddaa isku sii dhufan waxaa soo baxayso 64 marka jawaabta u dambeysa waa 64 oo ahayd sidii loo baahnaa oo tir ahaan u qortida la rabay waana u qortay jawaabta dambeysa waxay noqonaysaa marka 2 lagu muujiyay 6 waxay la eg tahay 64 la eg tahay sidoo kale su'aasha ku xigta ee labaad oo ah 9 lagu muujiyay 3 ayadan hadaa fiirino 9ka waa base-ka waa English dii lagu dhaho 9ka waa sal 9ka waa sal 3dana waa muujiyihii 9ka waa sal 3dana waa muujiyaha marka muujiyaha oo 3 ah wuxuu sheegaa ama uu cadeynaa salka 9ka ah inuu isku dhacayo 3 jeer waxa isku dhufsanaya marka waa salka meeqa jeer isku dhufsamaa muujiyaha intuu yahay isku dhufsamaysaa marka muujiyaha waa 3 9 wax isku dhufsamaysaa marka 3 jeer isku dhufsamaysaa hadii la isku sii dhufto waxa soo baxay labada 9 ugu horeysa daal isku dhufto waa 81 9 kale hadii lagu soo dhufto waxa soo baxay 729 ugu dambeyn marka su'aashii ahayd 9 lagu muujiyay 3 waxay la eg tahay 729 okay su'aasha ku xigto oo hadda laba ka soo jawaabnay mid saddexaad oo ah 12 lagu muujiyay 2 iyo 5 lagu muujiyay 4 hada soo qaadana marka mid saddexaad oo ah 12 lagu muujiyay 2 dabcan sida saado kaleeto dhammaan waa isku style ama waa isku qaab marka 12ka waa base-kii waaye ama waa salkii labadaasna waa muujiyihii waaye marka muujiyaha wuxuu cadeeyaa salka inta jeer oo isku dhacay marka hada salka waa 12 muujiyahana waa 2 marka maadaama muujiyaha 2 uu yahay uuna sheegayo inta jeer ee salka isku dhacayso marka salka wuxuu isku dhacaa 2 jeer oo waxay noqonaysaa 12 lagu dhuftay 12 hadii la isku sii dhufto 12 lagu dhufto 12 waxay noqonaysaa 121 marka su'aashii ahayd 12 lagu muujiyay 2 waxa soo baxayso hal ama 121 dhinaca kale hadaan fiirino su'aasha kale ee afaraad iyadana waxay ahayd 5 lagu muujiyay 4 5ta waa salkii waa base-kii 4tana waa muujiyihii marka mar kastana xasuusno 4ta waxa waa muujiyana wuxuu cadeeyaa salka inta jeer ee uu isku dhufsamayo marka salka waa 5 waaye muujiyahana 4 waaye maadaama marka muujiyaha 4 uu yahay salka oo 5 ah waxay isku dhufsamaysaa 4 jeer oo waxay noqonaysaa 5 oo isku dhufsan 4 jeer marka 5 lagu dhuftay 5 lagu soo dhuftay 5 lagu soo dhuftay 5 hadii marka isku dhufano 2 kasta isku xigta isku dhufano waxa soo baxayo 25 lagu dhuftay 25 ayaga nafsadooda hadii la isku sii dhufto waxa soo baxayo 625 jawaabta u dambeysay sida loo baahnaa saas ahayd saas darteed marka 5 lagu muujiyay 4 tir ahaan hadii loo qoro jibaarka 5 lagu muujiyay 4 oo jibaar ah hadii tir ahaan loo qoro waxay noqonaysaa 620 iyo waxay noqonaysaa 5 intaas waxa kaga bixinaa intaas waxa kaga soo baxnay ka jawaabida su'aasha ugu horeysay oo ahayd in ay baxalahay su'aasha ahayd jibaarkaas oo loo baahnaa in tir ahaan loo qoro kan waa cagsigiisa tirooyinkii uu bixinayaa waxaana loo qoraa jibaar ahaan marka wuxuu ku leeyahay u tibaax jibaar ahaan tirooyinka soo socda marka waxa lagu siiyay waa tirooyin lagu siiyay waxa laga rabaa inaad u qortid jibaar ahaan inaad u qortid loo baahan yahay marka maxaan dhahayna furfuris su'aasha horeyso waxay ahayd 6 lagu soo dhuftay 6 waa 4 lixaad oo isku dhufsan marka numberku isku dhufsamayo waa salka numberku isku dhufsamayo waa 6 marka waxay noqonaysaa salkay noqonaysaa inta jeer 6 isku dhufsanta waa 4 waxay noqonaysaa muujiyaha maadaama muujiyaha uu cadeeyo inta jeer ama inta goor ee uu numberka isku dhufsamayo waxay noqonaysaa marka 6 lagu muujiyay 4 6da waa salkii 4tana waa muujiyihii oo cadeynayay salka inta jeer ee isku dhufsamayso marka jawaabta saasay noqonaysaa oo gaaban 6 lagu muujiyay 4 ay noqonaysaa marka jibaar ahaan loo qoro kan kale ee labaad wuxuu ahaa ta lagu dhuftay ta يعني هذا سلك وحاء تا موجيها وانت جور اسكو دفسمي تا اسكو دفسنت marka laba isku dhufsantay maxay noqonaysaa salka soo qaado oo ta ah inta goor isku dhufsanteen waxa uga dhigtaa muujiye marka waxay noqonaysaa ta lagu muujiyay taada kuwaad muujiyaheeda waa hal
ta'da labaadna mawjaheedu waa hal. marka maadaama labada ta ay yihiin uu salku isku mid yahay, waxaa la sameeyaa hal sal laga soo qaataa. hal sal markaa soo qaadaysa oo ta ah, labadan ta operationka ama xisaab falka ka dhaxeeya waa isku dhufasho. maadaama isku dhufasho uu yahay, ta'da hore mawjaheedu hal waaye, ta'da dambena mawjaheedu hal waaye, labada halaada isku darsanaysa. marka ugu dambeynna waxaa soo baxaya ta lagu muujiyay labo, oo ka dhigan ta'da inay isku dhufsaneed markii hore laba jeer. ta lagu dhufta waxay la mid tahay marka ta lagu muujiyay labo. sidoo kale tan saddexaad ayadana waa ba lagu dhuftay ba lagu soo dhuftay ba lagu soo dhuftay ba, yacni hadda salka waa ba. marka muujiyaasha ba kastan waxay leedahay muujiye hal ay leedahay oo u qarsan. marka waxay noqonaysaa ba lagu muujiyay hal lagu soo dar hal lagu soo dar hal, yacni ba'da koowaad muujiyaheeda waa hal, ba'da labaad muujiyaheeda waa hal, ba'da saddexaad muujiyaheeda waa hal. dhammaan muujiyaasha ba'da isku dardaraysa, muujiyaha koowaad, muujiyaha labaad, muujiyaha saddexaad. marka ba lagu muujiyay hal lagu dar hal lagu dar waa isku darsanaysa, yacni halkaas taagan waxay u dhigan tahay inta ba isku dhufsamay. ba'da kaligeed meesha ku qoran waxay cadeynaysaa wax isku dhufsamay inay tahay ba. intaas marka haddii la isku dardaro waxaa soo baxaya ba lagu muujiyay afar, oo ka dhigan ba'da inay isku dhufsaneed markii hore afar jeer inay isku dhufsaneed. ugu dambeynna marka saas soo baxayso ba lagu muujiyay afar. okay, weli way socotaa. haddii aan kasii jawaabno midda afraad, oo marka hore waxaan dhehnaa furfuris. midda afraad waxaa waay shan lagu dhuftay shan lagu soo dhuftay toddobo lagu soo dhuftay toddobo, yacni waa laba sanaad oo isku dhufsamay iyo saddex toddobaad oo isku dhufsamay. marka maxaan dhehaynaa meeshan waxaa ku haysanaa laba sal, salna waa shan, salna waa toddobo, yacni way kala duwan yihiin. marka waxaan dhehaynaa labada shanaad, labada sal ee shanta ah, hal sal ka soo qaada oo shan ah. kadibna waxaa muujiye ooga dhigtaa shantaas inta goore isku dhufsantay oo laba goor ah. kadib waxaa kusii dhufataa salka labaad oo toddoba ah. kadibna waxaa muujiye ooga dhigtaa toddobada inta goore isku dhufsantay oo muujiye uu noqonaya oo saddex ah. marka jawaabta ugu dambeysa waa sidaas. hadda waxaa u qortay jibaar ahaan, markii horena waxay u qorneed tir ahaan u qorneed. midda kusii xigto maxaa ahaa shanaad waa laba lagu dhuftay labo lagu sii dhuftay hal lagu sii dhuftay hal. marka laba labaadoo isku dhufsamay iyo laba aadoo isku dhufsamay. meeshan waxaa ku haysanaa marka laba sal, salna waa labo, salna waa a. marka maadaama laba sal isku mid yihiin, hal sal ka soo qaado, labada sal ee laba hal laba ka soo qaado. kadibna waxaa muujiye oo u dhigtaa labadaas salka ahayd inta goore isku dhufsaneed ama ay isku dhacday. marka laba goore isku dhuf waxay noqonaysaa marka laba lagu muujiyay laba lagu soo dhuftay a iyo a oo ayagana laba sal ah, hal sal ka soo qaado. kadibna muujiye waxaa u dhigtaa inta goor ee ay isku dhufsameen. hadda marka waxaa u qortay jibaar ahaan, halka markii hore ay kugu qorneed tiro ahaan. su-aasha u dambeysa marka haddaan fiirino waxaa isku dhufsamay meeshan afar aad, waxaa kusii dhufsantay afar caada kusii dhufsantay. kadib waxaa kusii dhufsamay ama lagu sii dhuftay da. micnaheedu maxay tahay marka? micnaheedu waxay tahay meeshan waxaa ku haysanaa saddex sal ama saddex bays. waxaa haysanaa bays a, waxaa haysanaa bays ca, wax kaloo haysanaa sal ama bays da. intaas haysanaa saddex sal haysanaa oo kala duwan. marka sal kasta mid ka soo qaado intuu isku dhufsamay muujiye ooga dhig. okay, haddaa soo qaadatay marka a waxay isku dhufsantay afar jeer, a sidaasoo kale ayadan waxay isku dhufsantay afar jeer, da laakiin waxay isku dhufsantay ma jirto, waa hal jeer isku dhufsanta la dhihi karaa. marka su-aalaha halkaas kusoo gabagabeynaynaa oo aan kaga jawaabnay. waa rajaynaynaa inay ku noqoto naqtiin ama inay ku noqoto muraajaco kusoo xusuusiso xisaabtii iyo leeliskaaga buuggaaga. halkaan kusoo gogweynaa inta maanta ama muuqaalkan aan ugu talagalnay waa intaas. fadlan subscribe noo subscribe garee haddii casharadeenna ay ku qanciyeen, like saar, waad mahadsan tahay. ramadaan kariim wa kullu caam wa antum bikhayr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Blessings on this special day. Thank you Allah, thank you for this day. Juma Juma Mubarak, Juma Juma Mubarak.
Jumma Jumma Mubarak. It is Friday, this is the best day. Jumma Jumma Mubarak. Jumma Jumma Mubarak. Jumma Jumma Mubarak. Jumma Mubarak.